ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed ee Doosyo ayaa maalinkii 10aad afurin u sameeyay dadka ku nool kaamamka ku yaala duleedka magaalada Muqdisho kuwaas oo ah dad danyar isla markaana ka soo barakacay gobolada dalka Soomaaliya. Gudoomiyaha golaha sare ee ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed ee Doosyo Mudane Abuukar Shoota Xuseen ayaa waxa uu burjoogteynayay barnaamijka afurinta maalinkii 10aad ee ururka Doosyo. Gudoomiyaha golaha sare ee ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed ee Doosyo Mudane Abuukar Shoota Xuseen ayaa waxa uu sheegay in ururka Doosyo ahaan ay u diyaarsan yihiin dhamaystirka iyo sii wadida barnaamijka ilaa iyo dhamaadka bisha Ramadaan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين وبعد maanta waxaan joognaa kaamka la yiraahdo naftu waa biyo oo ku yaalo degmada Kaxda waa maalintii 10aad barnaamijkeeni ee afurinta walaalaha dadka danyarta oo ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed ee Doosyo sanadkii 7aad si xiriir u sameeynayo ilaaha ku maadsan waxaan u mahadcelinayaa guud ahaan inta nala shaqeyso oo tiimka reer Doosyo ah dadka waqtigooda ku bixinay maalin kasta meeshan taagan golaha fulinta oo ay juhdi badan gelinayaan maalintii dhan ay u taagayeen sida ay walaalahooda ay furintan u soo gaarsiin lahaayeen ururka Doosyo markasta wuxuu heegan u yahay inuu wax kasta ku bixiyo waqti ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo wax kastaba dadkeena danyarta duruufaysan markasta anaga u dad ah anagaan heegan u ah anagana la doonayaa inaan u adeegno oo aan u shaqeyno ururka Doosyo markasta wuxuu qayb ka qaadanayaa inuu horumariyo bulshada inuu garab istaago dadka danyarta oo duruufaysan dadkeena kaamamka ku nool ay haysan waxay ku afuraan in afur ay helaan ayuu ka shaqeynayaa ururka Doosyo maalintii 10aad aan noo gashay wayna noo socon doontaa inta noo dhiman insha Allah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in soo wanaagsan nooga dhameeyo Sare Ibrahim ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed ee Doosyo magaalada Muqdisho.